Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada cashir kale oo aynu kaga hadli doono astaamaha dariiqyada ee barashada baabuurta. Cashirkan waxaan si gaar ah ugu soo qaadan doonaa calaamado u gaar ah meesha tareenka ama jidka tareenka iyo baabuurta ku kulmaan. Calaamada aad ku garan karto inay wado tareen ama jid tareen iyo baabuurtu iskaga gudbayaan ay kaa horeyso inta ay ku jirto masaafada, iyo sawirro aad ku garan karto inaad goobtaasi gaadhay ama aad u dhowdahay. Kusoo dhawaada dhammaantiin. sida sawirkan kaaga muuqata waxaa ku dhex sawiran calaamada saddex geeska ah ee digniinta ah ama khatarta kaaga digaysa ee aynu hore usoo dhiganay horena usoo aragnay tareenkaasi oo ay hoosta kaga qoran tahay saddex xariijimood oo casaan ah. Saddexda xariijimood waxay sheegayaan mitirka ama inta mitir ee ay masaafada ku jirto waa 240 mitir marka aad calaamadan aragto. calaamadan saddexda xariijimood ay ku qoran tahay waa calaamad muujinaysa inaad u dhowdahay goob tareen ama wadadii tareenka iyo baabuurka ku kulmayeen. mitirka ay kuu jirto ama masaafada ay kuu jirtaana waa 240 mitir. calaamadan labada xariijimood ay ku qoran tahayna waa calaamad tilmaamaysa in ay masaafadii intii hore kasoo dhawaatay oo ay ku jirto 160 mitir. waa xasuusin mar labaad lagu xasuusinayo inaad u soo dhawaatay. marka aad halkaa marayso waxaa lagaa rabaa inaad gaadhiga aad u yareyso speedkiisa. haddii aad 50 ku socotay ilaa 30 ilaa 20 inta u dhaxaysa aad kusoo celiso, geerka labaadna aad geliso oo aad aayar uga gudubto meesha adiga oon xoog u soconayn. calaamadana waa calaamadii u dambeysay ama waa xasuusintii saddexaad ee lagu xasuusinayay inaad meeshii u dhawaatay. 80 mitir ayayna ku jirtaa. 80 mitir markay ku jirto wax badan maaha. waxaa lagaa rabaa gaadhiga inaad xawaarihiisa yareyso, inaad geerka labaad geliso, iyo in aad bidix iyo midig labada dhinacba iska eegto. sababta saddexdaas calaamadood laynoo tusinayo ee masaafada intaas leeg loogu dhexaysiinayo marba mid waxaa laga yaabaa qofku mid uu arki waayi karaa, mid labaad uu arki waayi karaa ilaa ta saddexaad. saddex calaamadood oo intaasoo mitir isku jira oo dhinaca midigta kaa xiga ama aad ag socoto, haddii aad arki weydo waxay ka dhigan tahay inaad shil halis u tahay oo aanad khatarta iska jiri karin. saas darteed ayaa xasuusintan lagugu sameynaya. sababta aad xawaaraha u yareynaysaana waxay noqonaysaa haddii uu tareenku meel dhow kasoo muuqdo adiga oo wax yar u jira in aad hore u joojin karto. waayo gaadhi xoog u socda haddii aad jooji istiraado degdeg ku jooji istiraado waxaa laga yaabaa in meeshii loogu talagalay aanad ku istaagin. saas darteed inaad xawaaraha yareyso si aad hore uga jawaab celiso haddii aad tareen kadiisa aragto. iyo talabaad oo ah xagga gaadhiga taayiradiisa iyo gaadhigaaga oo ay dhibaato soo gaari karto haddii aad biraha tareenka xoog uga gudubto oo taayiradiisa ay dhaawici karto. labadaas sababood ayaad ugu yareynaysaa xawaarahaaga. calaamadani waa calaamad kale oo tilmaamaysa in uu kaa horeeyo dariiq baabuurka iyo tareenku ay ku kulmi karaan, taasi oo ay idiin dhaxayso adiga iyo wadada tareenka dayr ama maxaa Soomaali uu ku noqon karaa dayr ama dee shabag ama bir u dhaxaysa baabuurka iyo tareenku jidka uu marayo. marka 240 mitir ayay ku jirtaa sidii calaamadii koowaad aynu kusoo aragnay ee tareenku korka kaga sawirnaa. jid tareenka baabuurta iyo tareenku ay ku kulmayaan ama iskaga gudbayaan waxay u qaybsamaan dhowr qaybood oo kala ah. qaybtan koowaad oo labada dhinacba birtu ay taagan tahay marka uu tareenku marayo, iyo mid kale oo hal dhinac uun joojinaysa halka dhinacna uu istaagayo marka ay birtaas arkaan. qaarkoodna waxaa lagu sameeyaa bir iyo ambal ama ishaaro iyo bir isla socota. ishaaradaasi marka ay casaan ama guduud soo shido waxay ka dhigan tahay inaad ka istaagto, birtuna ay soo degayso, markaas ma gudbi kartid. qaar kalena wax bir ah iyo wax ishaaro ah ama ambal ah midna looma sameeyo. waxay ku xidhan tahay qofka gudbaya inuu iska hubiyo iskana jiro. waxa kaliya oo aad ku arki kartaa calaamada isdhaafka ah ee casaanka iyo cadaanka ah
wax bir ah ama wax ishaaro ah ama leyd ku qabanaya oo casaan ama guduud ku shidaya midna ma jiro. Calaamadan sawirka inooga muuqata waxay hal mar wada joojinaysaa baabuurta iskaga gudbaya labada cirif iyo dadka lugeynaya. Dhinacan bidixda haddii aad fiiriso waa ishaaro cas baa shidan, birna way taalaa, markaa waxay ka dhigan tahay dadka iyo baaskiilka wadadan ka gudbaya inay ka xidhan tahay. Baabuurtiina dhinaca midigta wata ka muuqata inay xidhan tahay, tareenkiina uu gudbayo. haddii aad soo gaadho ishaaradii oo casaan shiday adigiina aanad weli wadadii ka gudbin, birtiina aanay weli dhulka usoo degin, halka aad joogta istaag, ha isku dayin inaad ka gudubto. wadada noocan ah waa wadadii aynu soo sheegnay hadda ka hor ee aynu lahayn hal dhinac ayay ka xidhantaa, dhinaca kalena baabuurta iyaga ayaa ka istaagaya marka ay casaan ka shido. waa tii halka dhinac ka xidhmaysay. sawirkani waa sawir muujinaya meel aan lahayn bir tareenka kaa qabata ama ishaaro ku joojisa. waxaa laga rabaa qofka wadadan maraya inuu aad isaga taxadiro. number 2 uu gashado geerka gaariga, labada dhinacna iska eego, si tartiibana uga gudbo, iskana ilaaliyo hareeraha. intaas waxaa noogu dhan cashirkeennii koobnaa ee ku saabsanaa fair care citation ama calaamadaha dariiqyada. haddii aad wax ka faa'iiday, fadlan subscribe lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.